gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriso ayaa maanta mar kale daafuray mashruuca dib u dhiska degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir iyadoo degmada Yakshiid ay tahay degmada ugu baaxadda weyn ee caasimadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xaruntaani isagoo ku dhiirigeliyay madaxda kala duwan ee ka shaqeynaysa dhismaha xaruntaani inay dirdirgeliyaan in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo mashruuca lagu dhisay xarunta degmada Yakshiid si bulshada loo fududeeyo adeegyada kala duwan oo ay xarunta degmada u soo doonan jireen. daafurka mashruucani waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Yakshiid, odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka amniga. gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir oo goobta ka hadlay waxa uu faahfaahiyay mashruucani iyo muddada kooban ee lagu dhisi doono xarunta degmada Yakshiid. maanta waxaa noo farxad markaa inuu gudoomiyihii nala joogo asigoo mar labaad noo daafuri doono dib u howlgelintii dhismihii xarunta degmada Yakshiid oo aan maanta u taaganahay inaan dib u bilaawno howlaheedii si aan u dhameystirno. waxaan rajaynaynaa insha Allah muddo 3 bilood gudahood ah in degmadan ay noqon doonto degmo dhisan oo diyaarsan oo xiriga ka jari doono insha Allah gudoomiyaha gobolka Banaadir. duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriso oo gabagabada hadlay waxa uu tilmaamay in maamul gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dirdirgelinta dib u dhiska caasimadda isagoo sidoo kale tilmaamay in muddo 3 bilood gudahood lagu soo gabagabeyn doono mashruuca lagu dhisay xarunta degmada Yakshiid. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo kormeerno u kuurgalno xaaladda dhismihii hadda ka hore u dhagax dhignay ee degmadan Yakshiid oo aan markaan bulshada iyo maamulkaba go'aansadeen inay diyaar u yihiin inay sii dardargeliyaan la dhameystiro rajaynayna muddo 3 bilood gudahooda halkan inaan arki doonno sartaas quruxda badan oo gadaasheena sawir ka muuqda in ay degmadii quruxdaas yeelan doonto bulshadana ay heli doonaan xarun casri ah oo qurxoon oo bulshada u adeegta. runtii degmadan Yakshiid waxaan rabaa inaan ku ammaano bulshadooda, bulsho midnimo iyo wadajir u taagan dawladnimo, horumar iyo inay kaalin ka qaataan dib u dhiska dalkooda. barnaamijkan barnaamij isxilqaan oo muddaba maamulka gobolka u waday oo bulshada isku tashanaysay isla markaana ay goobahoodii iyo dantoodii guud xarumahoodii ay dib u dhisanayeen ayuu kan qayb ka yahay. marka waxaan rabaa inaan bulshada mar kale aad iyo aad u ammaano madaxda dhaqanka sidoo kale oo runtii ayagana mar walba na garab taagan. maamulka gobolka Banaadir uu horkacaya duqa magaalada Muqdisho Mudane Injineeriso muddooyinkii ugu dambeeyay waxay magaalada Muqdisho ka wadeen qorshayaal kala duwan oo dib loogu soo celinaya bilicdii iyo heebadii ay bariismaadkii lahayd caasimadda. Nuur Saciid Taaliil xarunta degmada Yakshiid telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.